bahaysa abaar foolxun xooluhuna waa jilicsan waa wixii baxayna baxa wixii kalena waa liitaan inaan xoolo aad iyo siigay waa siinay way dhulku siinay way xoolo waa tubayiin aadna waa u dhintaan safar qaatay muddo 2 maalmood oo lagu gurgarayo xaaladda abaareed ee dadii adduunyo ay la tiicayaan deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer oo ay hogaaminayaan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka iyo guddida abaare heer gobol ayaa waxaa lagu soo marnay deegaanada Waraabeeye Ruqsi Masalaha Garood iyo degmada Nasiye iyo deegaanada hoos yimaada waxaana ka jirta xaalad biyo la'aaneed iyo dad adduunyo oo duruufo adag ay ku gadaamayeen dadka xoolo dhaqatada ee deegaanadaasi ku nool abaar kulul omos iyo biyo la'aan gaajo ay la tiicayaan dad adduunyaba dadka abaarta iyo biyo la'aanta baasan ay ku haysato geedaanada gobolka Togdheer ayaa waxa uu goorgalay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco iyo qaar ka mid ah guddida abaaraha ee gobolka Togdheer waxaana xukuumadda Soomaaliland hay'adaha dawliga iyo kuwa maxalliga ah ay fariin cod dheer ugu direen in si degdeg ah wax looga qabto abaarta iyo biyo la'aanta baasan ee ka jirta deegaanada gobolka Togdheer iyagoo xukuumaddan ugu baaqay in si degdeg ah dadkan gurmad loola soo gaadho waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sida tan halkan aan joognaa naga dambaysa oo dhulka abaaraysan aan soo marnay bay ka mid tahay waxa weeyaan meelaha aan soo marnay xoolo badan kuma arag dadkii waxna waa ka guuray waxna runtii dhulkay beerka ku hayaan maati badan oo meelihii lagaga guuray tuulooyinkaan soo aragnay waxaan soo aragnay wadan dhan oo bilaa biyo ah 120 kilomitir oo isku weer ah oo intaan marayna 30 tuulo ah tuulo kaliya barkadii biyo ku jiraan ama ceel biyo ku jiraan maana arag waxaan ahayn wax loogu keenay booyadahaasna waxay noqonayaan wax habqana waxa dawladda iyo ka soo gaaray gudaha baro aad bay kooban yihiin runtii dadkaasi waxay u baahan yihiin tabantaaba weyn laakiin imika bishan bilatay ee ay ninku ku jira 12ka waxa la soo wariyay hal magaalo oo hal daraan laga soo qaadayo gudaheeda inaanay jirin 30ka magaalo ee imika aanu soo maray dhammaantoodna ay yihiin inay sugayaan gaari soo guxoo booyada dadkaasi waxay leeyihiin dadka baahan xataa dadka xooli waa laga iibsan laayay 30ka magaalana soo maray dhulkii waa aragtaan sida uu eegyahay xaalufka banaanka boorka kacaya iyo awaaraha waa aragtaan biyo la'aantu heerkii ugu xumaabay gaadhay 120 kilomitir baanu hawd socon 120 kilomitir barkad xaaladda abaareed iyo biyo la'aaneed ayaa marba marka ka dambaysa ka sii daraysa biyaha qiimaha lagu geeyo ayaa mid sareeyo oo aanay dadka dayarta ee deegaanada hawdka gobolka Togdheer ku nooli aanay awoodin وسعيد علي عثمان حاليس تلفزيون عالمي قبرنيمو مقالة برعي حرونت قبل كتبدر